waxaan filayaa inaad marar badan aragtay hadda weli ma isweydiisay sida qaybta description-ka ee YouTube-ka loo saarto dhammaan platformada YouTube aad ku leedahay social media sida TikTok-ga, Facebook-ga, Instagram-ka kale iyo wax walba oo social media quseeyo sida loo saarto qaybta description-ka ee YouTube-ka. waxaan filayaa inaad jeceshahay inaad ogaato muuqaalkan ayaan kugu tusi doonaa intaanan muuqaalka guud galin waxaan ka codsanayaa inaad channel subscribe inoo saarto muuqaalkan ay loo qurxiso like inoo saarto aanu guud galno muuqaalkeena maanta YouTube Studio ayaad imaanaysaa oo ku yaala qaybta Chrome midka Chrome ayaad imaanaysaa haddii uu midka kale kugu jirin waad iska leed gareynaysaa ka bacdi qaybta search-ga ayaad gelinaysaa YouTube Studio ayaad gelinaysaa ka bacdina sidan ayuu ku keeni doonaa ka bacdina waxaad ka dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay customization ee hoose ee calaamadda idin tusayso markii aad qaybtaas aad ku dhufato haddaan ku dhufano customization kan waxyaabo badan ay qabataa balse maanta muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay ka hadlayaa basic info ayaad ku dhufanaysaa ka bacdi markaad customization kusoo dhufato ka bacdina hoos ayaad u soconaysaa ka bacdina linkiis qaybtan ku qoran ayaad imaanaysaa ka bacdina sidaad u jeedaan link title iyo URL required ayaa halkan ku qoran link title qaybtan ay ku qoran tahay waa qaybta magaca oo TikTok hadii uu yahay oo kale hadda TikTok ayaa linkiga igu jiro qaybtan aan TikTok ku qoro TikTok waan soo koobi gareeyay oo qaybtan waa qaybta magaca kaliya TikTok ayaad ku qoraysaa qaybtan TikTok marka aad ku qorto qaybtan waa URL-ka waa soo koobi gareynaysaa linkiga ay soo koobi gareynaysaa haddii aad Facebook leedahay aad ayaa dhahaysaa oo mid kale ay ku sii sameynaya sida midkan hadda aniga TikTok ee marka hore kaliya uu ahaa balse markaan aad dhahay mid kale link title-ka la sameeyay Facebook ayaa midkan ku qornaya ka bacdina waxaad sameynaysaa inaad soo koobi gareyso Facebook-gaaga ayaad halkan ku soo koobi gareynaysaa qaybta description-ka YouTube-ka sida wada aragteen ay ku keenaya waana hab fudud haddii aad muuqaalka heshaan waxaan ka codsanayaa inaad channel subscribe inoo saarto mar labaad muuqaalkan ay loo qurxiso like inoo saarto hada wasalaam peace and love